dalkan Qatar la yiraahdo ee ku yaala galbeedka Aasiya kana mid ah dalalka bariga dhexe isku ah waxa uu ka mid yahay dowladaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda dunida ugu awoodda badan xitaa Mareykanka dhanka ay kaga horeysa ayaa la oran karaa dowlado kala ujeeda ah isku cadow ah ay diblomaasiyad ahaan iskugu haysaa sida Israa'iil, Iiraan, Ruushka, Turkiga iyo kuwa reer galbeedku uu Mareykanku horboodaya kama marna kooxaha xagjiriinta ee saaxiibada ay la tahay Taliban oo ah koox ay muddo ee Mareykanka ku dagaalamayeen gudaha dalka Afghanistan ayay ku guuleysatay in foolka fool ay u wada haldarsiiso laguna guuleysto qaybo ka mid ah kol hore waa iyada iyo dalalka qaliijka ah ayaa cunuqabateyn saaro oo Sacuudiga horkacayo waxba kama aysan dhibin durba Sacuudiga ayaa ku baaqay inay diyaar u yihiin inay xiriir wanaagsan la sameystaan oo iskaashi iyo ixtiraam labada dal ku dhisan waatan kaliya ee Mareykanka arrimaha masiiriga ee bariga dhexe uu ka talageliyo waliba si weyn halku dhigii lagu dilay jarnaalka Iiraan ee Qaasim Suleymani kama aysan gilgilan ma aysan taageerin Mareykanka iyo Iiraan durba waatan uu tagay dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ana ra'iisul wasaare ku xigeen Axmed bin Cabdullaahi Al Mahmoudi oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay xaaladda ayuu labada dhinac kala hadlay si loo dejiyo inkastoo aysan wafdigu uusan Mareykanku ama bixin balse wararka diblomaasiyadda ayaa sheegaya in wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar oo dowladda Iiraan ku qanciyay inaysan waxba tilaabo aysan qaadin maanta waxaa dalkaasi Iiraan booqday Amiir Tamaan bin Axmed Al Thani oo si heer sare loogu soo dhaweeyay madaxweyne Xasan Ruuxaani ayuu kulan la qaatay markii uu gaaray madaxtooyada dalkaasi waxa uu kale kulan aad u ballaaran u la yeeshay Ayatollah Ali Khamenei oo ah hoggaanka guud ee dalka Iiraan waxayna ay ka wada hadleen arrimaha in hoos loo dhigo diblomaasiyad ahaan aan degdeg lagu gelin dirir bariga dhexe marka la ka qaraxda Qatar ayaa dhacda bariga dhexe waxayna saameyn ku yeelan kartaa dirirta Iiraan iyo Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka haddii ay sii socoto maadaama ay diris wadaag ay yihiin Qatar waa dal yar dhaqaale ku filan haysto waxaana door muhiim ah ka ciyaaraa dunida diblomaasiyadda dhaqaalaha wada hadalka waana dal muhiim u ah caalamka lama oga sababta intaas uu ku mineystay balse wararka ay qoraan warbaahinta reer galbeedka ayaa ah dal siyaasadiisa degan tahay dunidana la jaanqaada bulshakaaba media ayaad ka daawanayseen saaxiibadaan u jecelnahayo fadlan subscribe-ka ha naga hilmaamin naguna taageer Soomaaliyay gambaleelkan ugu fura si aad ugula socotaan warbixinada idiin soo gudbiyo anigoo Maxamuud Sheekh Cumar ayaa idiin soo jeedinaya tan iyo kulan dambe nabadiino warsan Soomaaliyay